Asalaamu calaykum waraxmatullah. Waa idin salaamay dhammaan walaalaha iyo saaxiibada qiimaha badan. Inuu dahab aynu kala maqnayn mashquul iyo hawlo jira aawadood, balse hadda dib ayaan isugu soo laabanay. Intaas kadib waxaan jeclaysanaa inaan idinla wadaago dhowrkan nasiixo ama talooyin oo run ahaantii aad u qiimo badan, aadna ii anfacay. Sidoo kalena aan rajeynayo inaad idinkuna wax aad ka faa'iidi doontaan. Midda koowaad, iska daa mustaqbalka ilaa uu ka imaanayo. Kaliya waxaad muhiimada siisaa beridaada, maxaa yeelay haddii aad hagaajiso maalinkaada waxaa hagaagaya beridaada. Beridaaduna waa isla mustaqbalkaada, oo yacni lagala jeedo aad ha uga walwalin waxa mustaqbalka iman doona. Yacni kaas lama gaarin, ma aadan gaarin, waxna kama qaban kartid. Laakiin waxaad awoodaa inaad maalintaada maanta u taliso, aad qorsheyso daqiiqad walba oo ku dhex jirta maalintaadana aad uga faa'iideysato sida ugu habboon. Midda labaad, wixii tagay way tageen, ha ka fikirin wixii tagay. Xataa haddii aad ka fikirto dib uma soo laabanayaan weligood. Kaliya maxbuus unbaad u ahaan xasuusihii hore iyo waxyaabihii ku soo dhaafay. Yacni waxayna kaa hor istaagayaan inaad horsocod sameyso, ama yacni horsocodkaada dambe ayay wax yeelaynayaan. Sida daraaddeed ha ku mashquulin maskaxdaada, ha ku mashquulin maskaxdaada ka fikirka wax laga soo tagay oo aan dib u soo laabanaynin. Midda saddexaad, waxaan kugula talinayaa inaad socoto oo aad jimicsi sameyso, kana takhalusta caajiska iyo iska fadhiidka iyo waqtiga badan ee bilaa macniga kaaga lumaya. Sidoo kale shaqo la'aanta oo loola jeedo wax qabo ku anfacaya adduunkaada iyo aakhiradaada. Soomaalidu markay halkaa marayso waxay tiraahdaa xagla laaban xoolo kuma yimaadaan. Caajiska, camal la'aanta, wahsiga iyo iska fadhiidka kuma gaari doontid hadafyadaada iyo halka aad hiigsanayso. Sidaas aawadeed ayay muhiim u tahay inaad istaagto oo aad fadhiga ka kacdo. Midda afaraad, cusboonaysii noloshaada, yacni rootiinadaada iyo lifestyle-kaada ama hab nololeedkaada. Hadba wax ka bedel, hadba wax cusub ku soo biiri. Waayo kuwaas yacni ayaa sameeya shakhsiyadda weyn ee aad doonayso inaad yeelato. Muhiimadu waa inaadan hal meel ama hal rootiin aadan ku dhaganaanin, ee aad hadba wax bedesho, wax cusubna aad ku soo biiriso hab nololeedkaada caadiga ah. Midda shanaad, waxaad afkaada bartaa kuna celcelisaa kelmadda laa xawla walaa quwata illaa billaah. Waayo nolosha ayay wanaajisaa, xaaladana way hagaajisaa, ruuxda way daahirisaa, culeysyadana waa ay xambaartaa, rabbina waa ay raali gelisaa. Midda lixaad, istighfaarta badso. Waa irsaaqada ayaa lagu furaa, kurbada waa lagu faydaa, cilmiga nacfi ayaa loogu yeelaa, arrimaha ayaa lagu fududeeyaa, dembiyadana waa lagu dhaafaa. Midda toddobaad, yacni ka digtoonow dembiyada badan ama inaad macaasida dhex dabaalato si aan kasoo noqosho lahayn. Maxaa yeelay waa isha walwalka, murugada iyo sidoo kale waana mataqaanaa musiibooyinka albaabada laga galo iyo murugooyinka oo dhan. Midda sideedaad, ha ka murugoonin hadallada xunxun ee lagaa sheego. Horto wax aadan ahayn noqon maysid, ciddii kaa sheegtayna culayskiisa iyo dembigiisaba keligood baa xambaaraya. Midda sagaalaad, caayda ay ku caayaan dadka cadowgaada ama xanta ay kaa sameeyaani waxay kor u qaadaysaa qiimahaaga iyo magacaaga. Waayo wax la sheego oo muhiimad weyn leh baad ka noqonaysaa dhexdooda. Midda tobanaad, waxaad ogaataa in kan gadaashaada ka hadla ee dadka dhexdooda kugu xanta, yacni wuxuu kuu hadiyey ajirkiisii, wuxuuna qaatay dembigaagii. Dadka dhexdoodana qof la yaqaan oo mashhuur ah oo la sheego baad ka noqonaysaa. Midda 11 ama 11aad, ku bilow dadka salaanta, dhoola caddeynta iyo waji furnaantana raaci. Ihtimaam iyo muhiimadna sii marka ay kula wadaagayaan arrimahooda, waxaad kasban doontaa qulubtooda. Midda 12aad ama 12aad, yacni noqo qof maskax furan oo curdaar u raadi kuwa ku xumeeyey, si aad nabad iyo xasilooni ugu noolaato, kana digtoonow inaad isku daydo inaad argoosato weligaa. Midda 13aad, cadowgaada ha ka farxinin, oo laga wado yacni caradaada ha uga farxinin. Ha uga farxinin caradaada iyo murugadaada, waayo tani waaba wax ay rabeen. Marka sidaas darteed ha u fulinin rabitaankooda qaaliga ah si ay u qalqalgeliyaan noloshaada. Midda 14aad, iska daa damaca
iyo jacaylka xaaraanta ah. Ileen waa cadaabta nafta iyo xanuunka qalbiga. Dabcan jacaylku xaaraan maahan, waana wax ugu qaalisan ee la hantiyo, balse waxaa loola jeedaa ha u marin wada xun iyo foolxumo kale adigoo magaciisa cudurdaar ka dhiganaya. Mida 15aad, haddii aad dhibaato ku dhacdo, xasuuso in dhibaatadan oo kale ee hore kuu soo martay, Allana uu kaa badbaadiyey. Markaasan ogow in Rabbigaadii markii horeba ku bogsiiyey inuu midkaana kaa daweynayo. Mida 16aad, ma jiro qalbi wax cafiya oo aan ku noolaanin raaxo. Sidoo kale ma jirto naf ku raali noqoto qadarta iyo wuxuu Alle u qoray oo aan dareemin xasilooni iyo deganaan. Mana jiro qalbi daa'imay alxamdulillaah oo aan farxadda iyo dhoola cadayntu maalmihiisa harqin. Mana jiro carab ku celceliya astaghfirullah oo aan loo furin albaabada khayrka iyo wanaagga. Mida 17aad, ma garanayno marka laga soo tago naxariista Ilaahay camalka aan ku mutaysan doono gelidda jannada ama aan jannada ku geli doono. Wuxuu noqon doonaa hal ragco oo aan Alle dartii u rukuucnay ama u sujuudnay, mise wuxuu noqon doonaa sadaqo aan la baxnay, mise wuxuu noqon doonaa mid haraadsan oo aynu waraabinay, mise tolow wuxuu noqon doonaa dan walaal muslim ah oo aan ku caawinay. Ma garanayno ay camal aan jannada ku tagayno. Sida darteed mar walba waa inaynan ka daalin samaynta wanaagga. 18aad, cilmiga barakadiisu maalka barakadiisu waxay ku jirtaa in laga bixiyo sakada. 19aad, qofka la xisaabtama naftiisa ayaa guuleystay. Mida 20aad, wax aad maanta qaban karto dib dhigin bari.